waa farxad kulansatay farxad kale waa yoomu faraxoo shamsu xalay sid goysay oo wiil bay ku curatay niyad wanaag iyo dhool cadayn baan isku baridanay tiiyoo saakana sariirtay ku umushay caafimaad qab lagu geeyay warqadaha imtixaamka oo welwel iyo walbahaar ku hayay cusbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaal magaalada Muqdisho ayay madaxda wasaaradda waxbarashadu ku booqdeen Shamso Maxamed Xaashi oo ah ardayad umushay xilligii imtixaamka ay u fariisan lahayd taasi oo dhaxal siisay in loo fududeeyo gelista imtixaamka. Shamso waa hooyo waxay maaragtay cusbitaalka u timid inay ku dhasho xilligii waxa isku soo beegbay imtixaanka iyo xilligii dhalmada wax iska dhaca waa dhiirigelinayna gabdhaha Soomaaliyeed inaanay sinaba uga maqnaanin maaragtay waxbarashada xilliga ay guursadaan iyo xilliga ay maaragtay yihiin maaragtay gabdhaha yihiin la guursaday inay maaragtay waxbarashadooda ay ku dadaalaan waa dareemi kartaan hooyo iyo maaragtay ardaynimo culayska iyo qiimaha ay leedahay annaga waxay noo tahay maaragtay qiimo weyn bay noogu fadhidaa price weyn bay noogu fadhidaa. Kanina waa cunuga alla ugu deeqay Shamso oo ku jira dhalada dhallaanka lagu barbaariyo goor hooyadii ka shaqeynayso ka jawaabidda imtixaamka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Inaa maanta imtixaankeeda galo dadka suurta galiyayna waan uga mahadcelinayaa iyo dawladda dhammaan iyo macallimiinta waxay soo bartay dhamaantood aadna u faraxsanahay maanta. Maxay kaaga dhigantahay adoo umulla inaad maanta imtixaanka dawladda galaysid? Wallahi farxadaas ka weyn ma jirto inaad waxbarato sababtoo ah hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale aan ku dhiirigelinayaa. Shamso Maxamed Xaashi ayaa midunka ku dhawaad 35,000 oo arday oo sanadkan u fariistay imtixaamka loo dhan yahay ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya kuwaas oo isugu jira arday fayow kuwa naafo ah iyo qaar ay la soo dirseen xaalado caafimaad oo cusbitaalada iyo guryahooda imtixaamka loogu geeyay. Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho.